الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب. إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب. ولد الإسلام غريبا واليوم نراه غريب، وصفوا ديني إرهابا والمسلم صار مريب. ولد الإسلام غريب وصى بها ديني، في الحل والترحال، في السلم في الحرب، في الأمن في الأخطار. إسلامنا عظيم، 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 إسلامنا عظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسينا صدحات دروستي عنكم مقعوني دروس في المنهج. درسينا إن شاء الله تعالى عنكم قادرنا بابك أفراد وكمدها أبواب تقصوا عرورتي منهجك جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة. بابك صحكها الله يا الاتباع والابتداع، وحان كأمسنا هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أما وحلو يقان ابتداع بدعة. وحلا صعطان دين الإسلام توحيدك يا لوسو قلا توحيدكنا أما شهادتنا والله وقيبوت حاويا شهادة أن لا إله إلا الله وقيبه هي شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياه. مركب الدهر وحاوي معنا سان صامرني الله كليس إلا عابده هي وكليس عبادة أوليه هي وحي كصهر عبادتنا عبادة الأيتها هي قفكنا ودياري هي إنه ساس سماية وإيان كلية معنا شيء information معلومات ما هو حاوي أنو ساس أيان سماينا يا إلهي كليس بان عابده يا أسرع عبادة إسكاله تاسوي. markaad ilaahay kaligiisa caabudaysid su'aal baa imaanaysa oo ah xageeba u maraysa cibaadada ilaahay subhanahu wa ta'ala, yaa kaga dayanaysa, yaa ku sheegaya waxa ilaahay uu rabo iyo waxa ilaahay uu san rabin, waxa ilaahay raali gelinayo, waxa ilaahay uu ka caroonayo cid ku sheegaysa waa cida, waxa ilaahay uu ka xaraantimeeyay, waxa ilaahay ku xalaaleeyay waa cida. marka Allah caabudaysid oo amarkiisa inaad qaadatid adiyarka u tihid in wixii uu ku amro inaad yeeshid adiyarka u tihid, meesha aad abaaraysid oo aad kaga dayanaysid inay xadidan tahay weeyaan. meeshaasuna tawxiidka qayb ka tahay waxa weeyaan wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah, muhammad sallallahu alayhi wasallam rasuulkii ilaahay soo diray uu yahay. waxa loo soo diray inuu wixii ilaahay uu rabo noo sheego, inuu waxa ilaahay naga doonayo uu noo cadeeyo, in waxa ilaahay uu naga xarimay uu noo cadeeyo, in sida ilaahay loo caabudayo uu noo sheego ayaa loo soo diray. waana rasuulkii ilaahay maaragtay sallallahu alayhi wasallam weeye oo rasuulka ilaahay uu fadliga badnaa weeye. runtii mas'uuliyad culus buuna qaaday waana ka soo baxay sallallahu alayhi wasallam. marka waxaan leenahay anagu wanujarridu li rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam al-mutaaba'a. rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam ayaan waxaan maaragtay u baraxtiraynaa ama ku gooni yeelaynaa raacitaanka cid la raacayo lagu dayanhayaa waa nabiga sallallahu alayhi wasallam weey. waxaan raacaynaa ittibaacan saadiqan, raacitaan run ah ayaa la raacayaa. waana shay waajib qof kasta muslima ku ah in nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiraaho uu yeelo, amarkiisa uu qaato, wuxuu u sheegay تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر وتقديم قوله على قول سائر البشر.
nabi sallallahu alayhi wasallam in wixii uu ku sheegay oo khabar ah la rumeeyo tasdiiqu fi ma akhbar wa ta'atuhu fi ma amar in nabi sallallahu alayhi wasallam wa adiicu wixii uu ku amrana xaq buu u leeyahay in nabi sallallahu alayhi wasallam warkiisa laga hormariyo war kasta oo bani aadam kale uu yiri wal intihaa amma naha anhu wa zajar inuu sallallahu ka reebtooma uu ka reebana in laga reebtoomaada marka culimada qaar kood baa maaragtay runtiisa u sharxay nabi sallallahu alayhi wasallam sidii loo raacayo loo rumeynaya erayadaas runtii wanaagsan culimadu ay sheegeen ayaa la tilmaami karaa oo tasdiiqu fi ma akhbar wa ta'atuhu fi ma amar wa taqdiim qawlihi ala qawli sa'il bashar wal intihaa amma naha anhu wa zajar nabi sallallahu alayhi wasallam asaga ayaa la raacaya asaga ayaa amarka laga qaadan maxay yeelay anagu maadaama ilaahay subhanahu wa ta'ala aan u jeedin oo ilaahay aan maaragtay maxaan ku uraahaa aan waxyigiisa aan haynin cid waxyiga haysa oo waxa jira la socota oo la soo amray oo la soo hadlay waa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam marka meel kale oo ilaahay loo maro meel kale oo ilaahay subhanahu wa ta'ala laga la xariiraayi ma jirto waa wadada kaliya marka qofkii nabiga sallallahu alayhi wasallam aan raacin oo aan rumaynin oo hada nabi ilaahay ma hayraado qofkaas waa gaaloobaya qofka marka nabi aan rumeeya rasuul aan rumeeyay waa inuu xaqiisii siiya fursadii maarad la soo diray iyo shaqadii loo soo dhiyay oo muhiimsaneed oo ahayd inuu diinta noo cadeeyo in laga faa'iideysto weey laakiin nabigii baan rumeynaya sallallahu alayhi wasallam rasuulkii baan rumeynaya sallallahu alayhi wasallam kana faa'iideysan maayo raaci maayo oo wuxuu yiri maaragtay yeeli maayo oo meel kale iska aadaya hada markaa maxaa ka faa'iideystay waxa kale ayadana khatar maaragtay in qofku uu maaragtay diinta ilaahay ku soo daro waxa loo yaqaan bidcada ku soo daro oo qofku uu yiraahdo waxyaalaha nabiga sallallahu alayhi wasallam sameeynin ayaan sameeynaya oo diinta ka maqan oo saan baa fiicnaan lahayd in la sameeyo taasoo macnaheedu yahay diinta in wax lagu soo daro arrinkaasuna maaragtay waa xaraan waa meel ka dhac weyn weey diinta ilaahay baa iska leh subhanahu wa ta'ala ilaahayna waxa uu rabo uu cadeeyay waa uu sheegay awood ku sheegi lahaa waa leeyahay amarku ku bixin lahaa waa leeyahay nabi uu ku kalsoon yahay oo maaragtay saadiqul amiin ahna waa u soo dhiibay oo aad noogu cadeeyay marka diinta ilaahay rabay ilaahayna subhanahu wa ta'ala waa soo gaarsiiyay waa noo soo maanu nabi sallallahu alayhi wasallam soo waxyooday nabiguna sallallahu alayhi wasallam marka ma asaga marka kala reebay oo qaarna aan sheegin qaarna sheegay miya diinta marka kala dhiman oo in la karkaro u baahan in wax lagu daro u baahan waxaana fiican ku dara qofka oranaya waxaan oranaynaa waxaan haday fiican yihiin hadii nabi sallallahu alayhi wasallam fiicnaanta badnaa oo wanaaga jeclaa asaga sheegi lahaa asaga sameyn lahaa asaga ayaan amri lahaa marka ibtidaacu diinta lagu soo daro bidco waa shay xaraana weey maxaa yeelay diinta asaaskeedu waa tawqiif waxa weeyaan ka istaag waxaan cibaado weey marka leedahay cibaado ilaahay baa lagu caabudaaye ma ilaahay baa sheegay subhanahu wa ta'ala ma aayada sheegtay cibaado nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa loo soo waxyoodaaye ma nabiga sallallahu alayhi wasallam sheegay ma asaga sameeyay marka maadaama waxaan ay quraankan uusan sheegin nabiga sallallahu alayhi wasallam uusan hadal ahaana oo oran ficil ahaana u sameeynin uusan ogolaanin hada wixii cibaado noqon maayaan marka cibaadadu wax ilaahay loogu dhawaanayo weeye in ilaahay waxaan loogu dhawaado see lagu ogaan karaa in ilaahay waxaan jecel yahay see lagu fahmi karaa waxyi un baa lagu fahmi karaa waxyiguna meel kasta kuma soo degee qof kasta uma yimaadee nabiga sallallahu alayhi wasallam kaliya ayuu u yimaadaa walidaalika baabkaas waa la xiray nabiga sallallahu alayhi wasallam wasii lahaa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd حديث متفق عليه وي قفكي أمر كينان كان أو دين تينان كسو درسية كسو درة وحان كمد هين وحاس مردود وي حديث كلا وحول مسلم ورنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قفكي سمي عمل أنا كان يسكسونين ومردود وي علماء وحي راهان دينتا ما ركت لبا ميلود لغا فيريا قلبنا ولا فيريا ficilka daahirkiisana waa la fiiriyaa labaduba jaangooyin bay leeyihiin marka laba xadiis ayaa waxa la yiraahaa ayaa kala jaangooynaya
xadiidna qalbiga ayuu jaangoynayaa camalka maqbuulka uu sheegayaa xadiidna daahirku ayuu maaragtay ayuu jaangoynayaa kan qalbiga jaangoynaya waxa weeye xadiidka macruufka inama al-a'maalu bin-niyaat wa inama likulli imri'in ma nawa xadiidkaas wuxuu jaangoynayaa camalka maqbuulka ah in loo baahan yahay niyo in loo baahan yahay ikhlaas halkaas haddii maaragtay gees martid camalkaas maqbuul maaha markii niyada la soo dhaafo ikhlaaska la soo dhaafo waxa ku xiga waxa weeye camalkaani daahirkiisa iyo muuqaalkiisa iyo siduu u dhacayo iyo makaanku u dhacayo iyo waqtigu u dhacayo sidii nabiga sallallahu alayhi wasallam laga soo gaaray ma yahay haduu sidaas yahay oo maaragtay muuqaal ahaan iyo suurad ahaan iyo ku dhawaaq ahaan iyo ficil ahaan uu maaragtay sunnada waafaqsan yahay camalkaas insha Allah ta'ala maqbuul weeye kaasna yani هذا حديث كان شيء أها من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أيات كان قوينية مرك فعل كأسمين يسيد وعبادة أكدق يسيد مر هدي النبي صلى الله عليه وسلم كسرنين ما ركتي أما مكان كيسي الخلديد أما كيفية يسي الخلديد أما وقت يسي الخلديد شيء قاص مقبول ما أهانيو ما كلا وداس ما رت الضابط أما لا ودا شيء كان قوينته إن لسكفيريو ayaa loo baahan yahay marka diinta wax lagu soo daro oo la yiraahdo waxa hal sameeyo maxaa ka macno ah maxay dhibaysaa soo ma fiicna soo cibaado ma aha arinkaasi war sax ah ma ahana war khalada weeyaan fal bid'atu fi diin kullaha dalaal wa marduuda diinta oo lagu soo daraa bidco kulligeed waa baadi kullina marduud weeye maqbuul ma aha diintu bid'a xasana iyo bid'a sayyi'ah ma laha بدعادة دين تلقوا صادرة كل جيل سيء أوي محايا معناه هذا حويان دين تأيه وحكم غيهين وي صلاة عصب لما يلهيو صون عصب لما يلهيو هب إله الله عصب لما يلهيو صلاة ودن سيد كفي عنته ولا شيء هذه سيد الله سمعينا ومقبول هذه اللي خردنا مقبول من غير منيسه وقت جذا حديدا شروط جذا حديدا أركان جذا حديدا آداب جذا حديدا هيئات كذا حديدا كل والو سمي سيده الصميه وحاجه اوقات وحاجه صلاه الديدي باجرته ان لا اقولين ان لا اقبلين باجرته اوقات الكراهه لا يراها اما اوقات تحريم الصلاه ولا يراها marka اوقات صلاه الديدي qof haduu yiraaho maxaa baahaya hadaan iska tukado maxaa loo diidaya waa wanaag arinkaasu sax maaha qofka dumarka ah dhiiga qabta inay tukato waa ka xaraan haday tiraaho maxaa la iga rabaa ilaahay aan caabud maxaa la igu diidaya arinka laga yeeli maayo waxa kada soo mani mayso marka waxa weeyaan wixii diintu ay ku xadiday lama dhaafi karo marka tukanaysid faatixadu meel bay leedahay rukuucu dhikri buu leeyahay sujuudku kelimooyin kale uu leeyahay atahiyaadku meel gaar ah ay leedahay hadii marka la istawa mariyo oo qof atahiyaadkii meeshii faatixada uu geeyo faatixadiina meeshii kale uu geeyo qofka markuu rukuucsan yahay haduu quraan akhriyo laga aqbali maayo nabi sallallahu alayhi wasallam ayaa wuxuu yiri waxa la iga nahiyay inaan quraanka akhriyo anoo rukuucsan ama sujuudsan marka de quraanka la diidi maaye meesha lagu matalagelin weeye macnaheedu marka cibaado kasta ficil kasta qowl kasta haduu waqti leeyahay waqtigiisa ku ilaali kayfiyadiisa haday sirri tahay waa sir haday jahri tahay waa jahri haday fardi tahay waa fardi haday tahay jamaa'i waa jamaa'i مثلا صلاة قارن هوس بالله أخريها قارن ولا جهرة هذا يعني كورن هذا الاستمرار إيوه ولا يراه كل أن جهرنه ودين كره الله قاضي وعدك هلا مغلو وهلا جاي عميشة وأن شيطان كعير هذا ترى اللي جاي معي مثلا وهكذا مركب وحكست سيد لو تشذي مثلا محنكورها أذكارته محنكورها بعد الصلوات وأذكار سرية وهي سبحان الله بأرنيسا الحمد لله أرنيسا وأذكار سرية وفردية وهي ليس لقادم ما هي جهرنا معها مركب هذه الخلاف ولا جهره أو ليس لقاضه أو ليس لبوقه حقيقة لا كان إيمانيسا وهكذا مركب وحكست أو ذكري إلى سبحانه وتعالى حصها أيوه أما النبي صلى الله عليه وسلم لو صلينا يا كيفية ذي يصير لو ترجع لي أياك وفلا أيضا كابضانه وحب دعاه ما الله بهنا marka dhamaan diinta bidca lagu soo dara waa xaraan ama ha noqoto bidco xagga i'tiqaadka ama ha noqoto bidco xagga cibaadaadka bidcada ma artay i'tiqaadka sida bidcada maxaan ku oraa khawaarijta oo kale ama shiicada
معتزلة واحد لمد كاهو أفكار الدين تاهو خردن آمن سن بدعة اعتقادي ويان بدعة حق عبادات كوحويان قف هدو صلاة كلا تكده المشروع هين قفك هدو وح مشروعها سخد الأسمية محيي العبادة وحال يراها وحال كلا صارها أصل العبادة وصفة العبادة عبادة أصل كيدنا هو النوع سيقول دعيسنا هو النوع مركز صلاة أصلها هو مشروع لكن ماشي دعيسه وقت دعيسه كيفية ذا أي الورديين يعني الله سبحانه وتعالى إلا حصاهي ومشروع لكن سيد الله حصاهيو الفاظ اللي حصاهيو ماشي اللي حصاهيو أي الله فيرنا مثلا إن إله اللي حصاه مسقوش اللي حصاه مالها وسخط الله ما أقلا مركا ورنا يسيد محل يقول دي ذا هي ما ليه كرتي وهكذا إن اللي قلت كذا أسواق ذا يجد كما رأيت ماشي الله مرة هياي ولا سكرهبه إن لو قلت كذا قبورته ولا سكرهبه مركب واحد كاستا وقت لو واحد يدي يمشي لو واحد يدي إن لا سمعيه أي لو بهني هاي مركب قفك عبادة نوعاس أو كلا أنشرين سمعيه أما عبادة شرته وقت جيدا كيفية ذا خرده قف كاس بدعو كل عهية بدعة قاركيد إن بدعة اعتقادية أو خطرة oo gaalnimo gaarsiinaysa qofka ama shirki gaarsiinaysa weey sida bidcada in waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ahayn la tala saarto oo loo yeerto oo la gargaar maaragtay weydiisto ayadoo laga hadlayo wax maaragtay qaybi oo maaragtay bini aadamka awoodoodu aysan ku daleersan qofku maxaan ku yiraahaa hadii bini aadamka nool waxay awoodaan oo tabartooda laga bariyo ay dhibaato ma laha laakiin waxa tabartooda ahayn ama qof dhintay maxaanku loo yeerto oo loo habar wacdo oo la yiraahdo soo gaar oo la yiraahdo caafimaadi oo dibkayga celi la yiraahdo arinkaas oo kale asna waa bidca weeyaan maxaanku raawaa waa bidca i'tiqaadiye weeye shirkana uu noqonayaa waxa kale oo kamid waxyaalaha maartay xaaraanta oo bidcada oo shirki keeni kara waxa kamid qubuurta oo la dhiso oo la maartay la buunbuuniyo oo la sharaxo oo maaragtay mara xariir la saaro waxa waxay keeni karaan qofku inuu qofkii dhintayba wax kale u maleeyo walidaalka qabriga inaan la dhisin uu caadi iska ahaado xaba aan la buunbuunin ayaana la amray si la iskaga ilaaliyo xadgudubka qofkan waa dhintay wuxuu helahayo oo wanaaga qabriga hoostiisa ayuu ku helayaa laakiin dibadda wax laga saaro ama lagu naashnaasho ama lagu qurxiyaa xaba u tari mahayaan النبي صلى الله عليه وسلم بدعة صحابتي سواء كنا هينجري هذا حديث عن صامريني ومغليسي إنه أصلا أولها ما ركتي من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد النبي صلى الله عليه وسلم مربوح أركي ميل الدوبين هي مركزوا ويدي مركزوا حالي نهب اللي يراويه وحب الله قاضي إنه صامه وصن حرصا وصن فريسا أنت أصلا شيء بالله قاضي أو إلهي بيقول دوانا إياه لو سأسمع حجري نك أسوأها أمرتان محنك وراها هفريستو هنا حرصدو صون كيسنا هذا ما يصير تالير مرك إن قرحة الاستاجاي عبادة الله ربه والوجود دري معها إن قفكم ما رأيت واستجنا ذا استاجاس مقصود لذاته معها لكن صونك هو عباده مرك واحد لير هفريستا ليري هنا حرصدو صون كيسنا هذا ما يصيرته marka cibaadada macnaheedu wax ka soo nafta dhiba macnaheedu maaha in la iska istaagnaado macnaheedu maaha sidoo kale waxa loo baahan yahay in la fahmo culimada qaar ayaa waxa laga sheegay inay tilmaameen waxa loo yaqaano bid'a xasana iyo bid'a sayyi'ah culimada qaar baa sheegay sida imaam Izzuddin ibn Abd Salam oo kale ama Nawawi oo kale waa laga sheegay culimadaasi waxay ka wadaan bid'a sayyi'ah iyo bid'a xasana waxay ka wadaan waa waxyaalaha aan diinta maartay aan cibaadada ahayn bay ula jeedaan waxa ka fahmi kartaa markay miisaalinayaan quraanka mesela oo la qoro masaaxiftan la qoray bay ku miisaalinayaan oo kale iyo waxa la midka waxay ku miisaalinayaan maxaan ku yiraahdaa diinta cilmiga la fidinayo waxay ku miisaalinayaan culumta naxwahan iyo fiqhigan iyo waxaan soo baxay marka waxyaalihii aan hore u jirin laakiin aan cibaadada maaragtay rasmi ama cibaado maxaan ku sirfi aan ahayn oo la soo kordhinayay macnaheedu bidca ma aha marka bidca luqawiya waa la iska oran karaa laakiin bidca sharciya ma aha waxaan u daliila culimada laftooda marka fiirisid bidcooyinka waa diidahayaan oo mesela imaam Nawawi rahimahullah ta'ala
oo la yiraahdo maaragtay bidca xasana ayuu qabaa kitaabkiisa minhaajka markuu ka hadlayay weesaqaadka uu ka sheekeynayay markuu weesaqaadkii xusay iyo arkaanteedii iyo shuruudeedii wuxuu leeyahay waxadaftu ducaa qasl al-a'dha wali waxa xadfa buu leeyahay ducooyinka la akhriyo marka xibnaha la mayrahayo oo wuxuu leeyahay imaam raafici oo kitaabkiisa uu soo gaabshay ayaa maaragtay adkaar buu sheegay marka madaxa dhaqaysid marka wajiga dhaqaysid marka gacanta dhaqaysid marka madaxa masaxaysid waxa noocaas uu sheegay oo adkaar ah ama ducooyin ah marka sheekhan wuxuu leeyahay waxadaftu ducaa al-a'dha ducada marka maaragtay la dhaqayo xibnaha sheekhaas uu sheegay buu leeyahay anigu waa xadfay maxaa yeelay la asla laha asal malaha buu leeyahay marka imaam nawawi haduu aaminsan yahay bidca xasana muxuu midda u deyn waayay waa dhikri ilaahay waa duco munaasabaday maartay la xariirta sheekh weyn baa sheegay oo raafici la yiraahdo imaam weyn ah hadana sheekh nawawi waa diiday maxaa yeelay nin faqiina waa ahaa nin muhaddis ahna uu ahaa sidoo kale مثلا hadaa fiiriso kitaabkiisa مثلا adkaarta iyo kutubadiisa kale salaadaha bidcada ah waa uu diidayaa sida salaada loo yaqaano salaatu raghaib loo yaqaano oo bisha rajab la tukada la yiraaho marka culimada laga soo warinayo in bidca xasana ay jirto culimadaasi waxay ka wadaan waxyaalaha aan cibaadada ahayn bay ka wadaan oo aan taqarrubka maxdiga aan ahayn diinta un lagu xoojinayo ay ka wadaan in adkaar bidca ah ama salaad bidca la sameyn karo ama soon bidca la sameyn karo ama salli bidca la sameyn karo culimadaas ma qabaan waxaan u daliila markay sheegaan mesela maaragtay mas'aladan tusaalahay bixinayaan bal fiiri waxa kale u daliila ayaga laftoodu bidcada ay diidaan ay tusaalaha ka bixinayaan kutubadooda u noqo marka imaam nawawi iyo izzidiin ibn abdusalaam oo culimo waaweyn inay salaad bidca ogolaadeen ama dhikri bidca ogolaadeen ama salli bidca ogolaadeen wax jira ma aha imaam nawawi maxaan ku adkaarta a'daada maxaan ku rahaa iyo ducada a'daada ayuu baxadfay ayadoo maaragtay wax wanaagsan ah oo sheekh weyn uu sheegay taas oo macnaheedu tahay uu leeyahay waa bidco asal malaha marka insha Allah ta'ala ka waxaan ku fahmaynaa in diinta say tahay loo qaatay waa shay waajib weeye ittibaaca waa waajib ibtidaa'una waa shay muharram weeye mana loo baahna diinta inta sugan oo la yaqaano oo saxiix ah oo cibaadada ah oo nabiga sallallahu alayhi wasallam laga soo gaaray oo saxaabada iyo salafku noo soo guuriyeen ayaaba tirada ka badan ayadaas baa nagu filan hadii adkaarul sabaax iyo adkaarul masaa la laazimo oo maaragtay adkaarul munasaba la laazimo ayada naga badan hadii nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu saliyo awqaad la jideeyay iyo awqaad maftuuxa ah mudlaqa ah ayada nagu filan marka meel aan la jideynin lagu ciriiriyo oo la galiyo oo la yiraahdo maartu waa fiican tahay hadii laga hadlana lagu yiraahdo saliga diidaysa ama nabiga nacabta la yiraahdo arinkaas arin runtii xadgudub ma aha war quraanka adoo rukuucsan lama akhrin karo macnaheedu quraan baan diidaya ma aha adoo sujuudsan faatiha lama akhrin karo faatihadan diidaya ma macnaheedu waxa weeye waqtigeedii ma aha munaasabadeedii ma aha waxa loo jideeyay oo had meesha lagu tala galay ma aha diintuna maaragtay ittibaac iyo naqli ayay maaragtay ku salaysan tahay oo macnaheedu yahay maxaa la soo arooriyay maxaa la sameyn jiray sidee loo sameyn jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu sameeyay saxaabadiisa maxay ka dhaxleen see u sameeyeen ayada naga badan ayada ayaa nagu filan ayadaana kaafi ah marka in la isfahmo oo waxa la sheegay la fahmo ayaa loo baahan yahay oo aan maaragtay maxaan ku rahaa duriinka iyo wax ka sheega iyo kelimooyinka la taxriifinayo la iska ilaasho ay ku fiican tahay marka anagu qofka muslimka guud ahaan gaar ahaan dadka ahlu sunnaha ah oo ahlu salafka ay inay ku dadaalaan ittibaaca ku dadaalaan ayaa loo baahan yahay ibtidaacana waa shay muharram ah ummadda muslimkaana waxaan maaragtay u dardaarmaynaa diinta inta la yaqaano macruufka ah ayaa ka badan oo ku filan oo waqtigooda iyo wax kastaba insha Allah ta'ala ay kaga faa'iideysan karaan umana ay baahna wax aan sal iyo baar lahayn ama aan la soo guurin ama sida loo sameeyo aysan sugnayn oo maaragtay aysan manquul ahayn درسينا ما أنت أيوم ما عرفتي كوجي هاي إن شاء الله تعالى درسك الأيام مركلة قادم دونا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.